السلام عليكم صاحبيال kusoo dhawaada muuqaalkan waxaan kula wadaagi doonaa waxyaabo badan ku saabsan Python programming language. Sida waa maxay Python programming language? Waxyaabaha aad ku dhisi karto sida data analysis iyo visualization, machine learning iyo artificial intelligence, automation, web development, game development iyo desktop application development. Iyo ugu dambeyn qaabka ugu fudud u baran karto. بس intaan muuqaalka ku sii siqin waxaan ka codsanayaa in aad nagu soo biirto haddii aad weli nagu soo biirin oo aad subscribe dhahdo muuqaalka like aad saarto sii share gareyso fikirkaagana comment-kaada igula wadaagto. Okay, ugu horeyn aan kula wadaago waa maxay Python iyo taariikhdeeda oo kooban. Python waa general purpose oo macnaheedu tahay inaad u adeegsan karto ujeedooyin kala duwan oo aad ku samayn karto waxyaabo kala duwan. Sidoo kale waa dynamic interpreted object oriented programming language. 1991 ayay markii ugu horeysay soo baxday Python, balse sagaashamaadkii ilaa 2015 wixii ka dambeeyay laga soo gaaro aad looma isticmaali jirin oo caan ma ahayn marka hore. sanadihii ugu dambeeyay ayayna caan noqotay sababtoo ah Python waa programming language barashadeedu aad u fududahay oo qoraal ahaan ama syntax-keedu ugu yara dhow yahay human language-ka. waana programming language awooda in ay hal line oo code ah kugu sameyso functionality oo kugu sameyn lahaayeen programming languages-ka kale dhowr line oo code ah. sidoo kale caanimadeeda waxa sabab u ah la oran karaa waayihii hore sagaashamaadkii iyo horaantii 2000 aad looguma baahnayn artificial intelligence-ga, automation-ka iyo data analysis-ka. balse waayahan dambe aad iyo aad ayaa loogu baahan yahay. Python waa programming language-ka kaliya ee degdeg aad ku baran karto isla markaana aad waqti ka yar programming languages-ka kale aad ku sameyn karto waxyaabahaas oo dhan. Okay, Python waxaad ku dhisi kartaa waxyaabo badan. waxyaabaha qaar oo looga fiican yahay, waxyaabaha qaarna iyada ku fiican oo u ah boqor. tusaale ahaan waxyaabaha looga fiican yahay waxa kamid ah web development, inkastoo web development-ga laftiisu aanay ku xumeen, game development iyo desktop application development. waxyaabaha ay ku wanaagsan tahay Python waxa kamid ah machine learning, data analysis iyo automation-ka. waxyaabaha ninkan ka soo sheekeeyo dhan waxa loo adeegsadaa libraries iyo frameworks ku dhisan Python. tusaale ahaan machine learning-ka library-yada ugu caansan waxa kamid ah PyTorch, scikit-learn iyo Keras. machine learning-ka markaa waxaad awoodaa inaad ku dhisto barnaamijyo caqli badan oo kala saari kara codadka. tusaale ahaan codkan inuu yahay cod xoola iyo cod dad yahay, barnaamijyo kala garan kara wajiyada, face recognition wax loo yaqaano iyo recommendation systemyada loo yaqaano. machine learning systemska marka aad sameeyso ugu horeyn waxa la baraa waxyaabaha aad doonayso inaad ku qabto. tusaale ahaan waxaad doonaysaa inaad sameyso barnaamij kala saari kara sawir qof bini aadan ah inuu faraxsan yahay, inuu xanaaqsan yahay iyo inuu yaaban yahay. si markaa marxaladahaas oo dhan uu kugu kala saaro barnaamijka, ugu horeyn waxaad baraysaa ama aad siinaysaa boqolaal ama kumaan sawir qof careysan. kadibna waxaad leedahay marxaladan qofka markuu ku sugan yahay waa marxaladda carada. boqolaal ama kumaan sawir waxaad siinaysaa qof faraxsan oo dhalo cadeynayo. markaa waxaad ku programinaysaa in marxaladan ay tahay marxaladda faraxsanaanta. hadhowda markaa wax u fududaanaysa barnaamijkan sawirka xagashada doonaha laga soo sawiro inuu kala garto marxaladda uu ku sugnaa qofkan marka sawirka laga qaadayay. machine learning systemska marka aad dhisayso markaa waxaa jira algorithm already sii diyaarsan. algoritmyadaas sii diyaarsan ama alqawaarismiyaadkaasi sii diyaarsan waxaa kamid ah mid la yiraahdo neural network iyo deep learning. sidoo kale waxyaabaha aad ku sameyn karto Python waxa kamid ah data analysis. library-yada ugu caansan data analysis-ka waxa kamid ah matplotlib, pandas iyo seaborn. data analysis-ku markaa waxa aad ugu baahan shirkadaha waaweyn ee online wax ku iibiya. shirkadahaas si u helaan macluumaad badan oo ku saabsan customerskooda iyo productskooda waxa laga maarmaan ah in ay adeegsadaan data analysis. tusaale ahaan productskii ugu badnaa la iibsaday, dadkii ugu badnaa macaamiishii ugu badnaa soo dalbaday inay rag ahaayeen, inay dumar ahaayeen, meelaha ugu badan ama ereyooyinka ugu badan ee laga soo dalbaday iyo waxyaabo badan ku saabsan. si daatadaas markaa shirkaduhu ay u helaan waxa laga maarmaan ah in ay adeegsadaan data analysis si daatadaas loo filter gareeyo isla markaana loogu soo saaro daato diyaarsan oo hadhowdina loo isticmaali karo businesskaasi. sidoo kale Python waxyaabaha aadka loogu adeegsado waxa kamid ah automation. automationku wuxuu kaa caawinayaa inaad sameyso application ama system yar oo adigoo computerkaaga ka maqan computerkaaga sii maamuli kara. tusaale ahaan system diri kara fariimo WhatsApp ah ama Messenger ah ama file server-ka ku upload gareyn kara adigoo sariirtaada iska hurda ama computerkaaga ka yara maqan. sidoo kale waxa lagu sameyn karaa automation-ka barnaamijyo computerkaaga si automatic ah faalasha magaca ugu bedeli kara, faalasha qaar delete gareyn kara iyo waxyaabo kale badan sameyn kara. waxyaabaha kale aad ku sameyn karto Python waxa kamid ah web development. web development-ga frameworks-ka ugu caansan ee loo adeegsado waxa kamid ah Django iyo Flask. framework-yadan oo aad ku dhisi karto REST API qaybta dambe ee website-ka ama waxa loo yaqaano server side.
sidoo kale waxyaabaha aad ku sameyn karto Python waxa kamid ah game development markaa waxaa loo adeegsadaa Pygame inkastoo Python waxyaabaha looga fiican yahay ay kamid tahay gamingka oo tusaalaan game marka aad doonayso inaad develop gareyso waxa ugu qatarsan barnaamijka loo yaqaan Unity ee isticmaasho C#. sidoo kale Python waxaad ku sameyn kartaa desktop applications. Okay, markan waxaan isleegaynaa qaabka ugu fudud aad ku baran karto Python oo ah programming language barashadiisu aad u fududahay. Waxa laga maarmaan ah inaad marka hore aad ka soo bilowdo basicska sida tusaale ahaan data typeska, data structureska, control flow iyo statementska, data operationska, methodska, error handlingka iyo waxyaabaha la midka ee basic ah. waxyaabahaas marka aad barato waxaad ugu sii gudbaysaa ama ay tahay inaad ugu sii gudubto library-yadii iyo frameworkskii markaan ka soo sheekeynay. sidoo kale si aad u barato marka waxyaabahaas oo dhan waxa wanaagsan in library-yadan iyo frameworkskii markaan ka soo sheekeeyay tusaale ahaan machine learning oo kale kuwa loo isticmaalo, web applications kuwa loo isticmaalo, Django iyo Flask. waxa fiican in aad application ku dhisto si xirfadaada ama experience-gaada kor ugu yaro kaco. in aad application ku dhisto waa habka ugu fudud aad ku baran karto Python oo kaliya ma aha balse programming language oo dhan waxaad ku baran kartaa in marka aad structure-ka iyo basic aad iska soo dhisto kadib inaad ku dhisto application ama systemyo ha yaraadaan systemyadaasi ama ha weynaadaan. muuqaalkeena maanta intaas ayaan kusoo koobayaa. waxaan kaa codsanayaa haddii aad muuqaalka daawashadiisa halkan aad kusoo gaadhay inaad like saarto, sii share gareyso, fikirkaaga comment aad wala wadaagto, isla markaana haddii aadan weli nagu soo biirin channelka aad kusoo biirto subscribe dhahdo. muuqaalkan xiga intaan ku kulmayno sidaa iyo nabadgelyo.